رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قدوميها قبل كبراد أهل دوق مقالة ترياش إذا ماذا قيبه هذا كل الدبن إن سراكيش كل بحث الصحافة مركز روحي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سلام كذب إن قدومي سوء الشيخ عبد الرحمن يريسو وحى ما أنت الشر مدة سعادة بدن قاتي وهو جامنا إبراهيم حس على قيرة أن أكورجن لي أن سي la fogornay in magaalada Muqdisho caasimada wadanka Soomaaliyeed sida nabadgelyo loogu dhigi lahaa marka waxaa jiray go'aan ka soo baxay golaha wasiirada bishii sanadkii hore May 2017 go'aankaasna wuxuu dhahayay in aan magaalada Muqdisho lagu wadan karin hubabka waaweyn sida Cabdibilah oo kale in dabajeexyada aan qof walba mas'uul ah oo golaha qaybahooda kala duwan uu mas'uul ka yahay ama وين وسارده هدو شقين لها وحال لقوا أمين أفر آكو وقوة مقالة مقدشو أفر آكو كبدنا هراء واستعمال كرن مركو قوان كاس مدة سنة وشقي مركو وحان قرني إن حوغا دبع إيو وعسنان سوق شيء مركو عيدا مدو وحان رأى لبقض بنا كهدلا عيدا مدو وحان فرينا إني قوان قوله وسيرد السيطة هايو دقمان يو دقنقليان سيدو كلا عيدا مدو وحان فرينا إن شعب كالصوماليات قارهان دادك دقان مقالة مقدشو ee u dhimirayaan markay wax wareysanayaan ama markay istaajinayaan ama markay baaritaan ku sameeyaan si asluub ku jirto oo akhlaaq ku dheehan tahay inay sameeyaan in shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho oo garabkayga taageer duqa magaalada waxa ayagana ka codsanaynaa inay ciidamada u la shaqeeyaan si dhow in amnigooda sugtaan amniga wuxuu ka bilowdaa waa shacabka marka shacabka waxaan rabnaa markaan sidoo hore inaan ka dubno aan sameeyno in darisiinta la soo celisho darisiinta degmooyinka ee ciidamada afarta qaybood inay isla falgalaan ee isla wada shaqeeyaan haduu Ilaahay yiraahdo marka mar kale waxaan ku celcelinayaa mas'uuliyiinta inay u dhagnuunaadaan ciidamada markay istaajiyaan wixii sharci daran ciidamada waxaan farayaa inay gacan bir ku qabtaan magaalada Muqdisho xaq uma laho in maalin kasto ama habeen kasto qof muwaadin ah lagu dilo xaq uma laho marka horena u sheegnay hadna waa ku celcelinayna waxaan naga dhab ah aan har habeen u taaganahay Ilaahay hortiisa ama aan u dhaaranay aan soo istaagna hawshan inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay ku noolaadaan si nabad iyo xasilooni ah ciidamada waxaan ku amaanayaa mar walba si u taagan yihiin inay cadowga nimanka nabadiidka ah oo ku soo duulay ummadda Soomaaliyeed siday har iyo habeen u taagan yihiin waan ugu mahadcelinaa waana maastiin. Assalaamu calaykum.